ما شاء الله ما شاء الله عاو waxaan ku caweysimeynaa meel la yiraahdo Jigjiga International waa museecaga weyni iyo xoolihiisii iyo reerihiisii iyo waxyaabo badan baa meesha istaba dhacaya halkaas suuqa weynaa ee Jigjiga Sayid Cabdilla Xasan waa meesha yar ee dhalaalaysa ma sha Allah jawi aad u qurux badan ayaan maanta dabaalanaynaa waa jawi aad u qurux badan magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ama Somali State afur wanaagsan weeye waa aniga iyo Sheekh Jamaal Sheekh Xuseen baa halkaa isaguna fadhiya ma sha Allah calankii baa naga shisheeya qaranka ee ummadda ayaa naga shisheeya ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay afur wanaagsan ayaan meesha ku qaadanaynaa iyo jawi aad u macaan oo runtii adduunka intii aan ku noolaa aan arag meel dabayshi ku garaacayso gaariyaashii ku hormarayaan hoteeladii oo aad u qurqurux badan ma sha Allah hoteelo aad u qurqurux badan ayaa ka dhisan ma sha Allah inta xaqiiqatan waa wax lagu faano aniga ma moodayn deegaan Soomaaliyeed in arki doono oo sano kala ma sha Allah marka daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa mandar aad u qurux badan Sheekh Jamaal iyo wada afurkiisii aan galabta ku samaysanay magaalada Jigjiga ma sha Allah runtii xaqiiqatan waxyaabahan aad ula yaabay waxa kamid ah hoteelo aad u qurux badan oo macnaha 10 ahayn oo 11 ahayn oo 20 ahayn oo waxaad arkaysaa magaalada Jigjiga runtii xaqiiqatan suurooydan anigu kama haysanin waxaan moodi jiray waxyaabo oo mufabrak waxyaabaha ay dhahaan ee la samaysto baan moodi jiray oo la isku soo dhadhajiyay runtii ma moodayn saas inay tahay laakiin bal fiiriya halka waxa idin ka muuqda Sayid Cabdilla Xasan ummadda sayidkeedii halgabaagi ummadda Soomaaliyeed ayaa halkaa ku yaala ma sha Allah waa jawi aad u qurux badan runtii xaqiiqatan Nairobi anoo kura yar abay ugu dambeysay magaalada Jigjiga afwan Nairobi ay afkayga ka dhacaysa magaalada Jigjiga waxa ugu dambeysay anoo kura yar ah magaaladuna saad iyo si ku dhowtoona ayna ahayn bal waxaan dhihi karaa xilliga waxay ahayd tuulooyinka ariga lagu raacdo ama geela lagu raacdo oo kala ah geeltirayaashu imaadaan laakiin maanta waa caasimad aan dhihi karnaa caasimad Soomaaliyeed oo sidan oo kala amaynan arag Sheekh Jamaal maxaa ku daraysaa alxamdulillah horta awalan afur wanaagsan ala khalfaadil walaalkay Allah barakeeyo oo aabay dhalay si wanaagsan maxamed khadar oo runtii ahaan muddo aad u dheer wadanka ka maqnaa ilaa 15 sano ama ka badanba ma sha Allah allana ay ku soo dhaw magaalada Jigjiga ma sha Allah dalkaagii barakaysnaa هذا مركب ماشان جوجنا وانترناشنال جيجيا حسن ولي تو دنك كلا هوتيل حمدي الى اسطنبول وعن كجرنا رنتي اهان وسط البلد بان هدا مرينا لكن على الحقيقه منظر اد وسق قرح بدلنا way leedahay Jigjiga ما شاء الله adigana waxaan ku leenahay shukran afurka iyo booqashada aad soo booqatay ما شاء الله waan ku ducaynaynaa wabarakallahu fiik جزاك الله خير Sheekh Jamaal waad maqlayseen iyo kelimadiisii wanaagsaneed ee uu halka inooga sheegay uu nagu baraarujiyay runtii waa mandar aad u qurux badan meel yar oo jawi macaan oo afurka runtii mar uu kugu tagay ma garanaysid meeshan jiim in la diyaariyo weeye ragga hadday cuntadan cunaan haddaan jiim la helin calooshii way fakanaysaa sababtoo keenaysana waxa weeyaan cuntadan macaan iyo jawigan macaan gaariyaashii oo maraya dadka indhaha ag ay qabanayaanna dad kale maaha kuuja iyo weewe iyo waxyaabo sheekada ma maqlaysid waxaa maqlaysaa bes ah walaal maxaad sheegtay huunna baad maqlaysaa weliba erayadii originalka baad maqlaysaa huunno walaal macaane yaad maqlaysaa oo Soomaali ah oo hooyooyinkii Soomaaliyeed oo dhammaantood halka wax ku wada gadgadanaya ma sha Allah Jigjiga waxaan dhihi karnaa waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed ugu quruxda badan baan dhihi karnaa maanta macna caasimad amniga iyo quruxdan iyo hoteeladan iyo macaankan iyo jawi macaankan isla haysato oo Soomaali ama la helayo waa laga yaabaa inaad mid qurux badan aragto waa laga yaabaa mid dhan ku fiican inaad aragto laakiin wax badan oo Jigjiga haysanin oo sida amnigu kamid yahay ma haysato oo Jigjiga maanta haysato ayagu ma haystaan marka alxamdulillah rabbil caalamiin bahal yar oo tugtug la yiraahdo halka iska ordayso oo Sayid Cabdilla Xasan sokadiisa hada geedahaas ku baxay oo qarinaya sayidka ilaahay xifdiya sayidka naxariistii janna ilaahay ha siiyo ee halka halgamaagi weynaayo ummadda Soomaaliyeed hoteelka quruxda badan sokadiisa ayuu ku yaalaa hoteelada dhismaya iyo kuwa dhisan waxa badan kuwa dhismaya waxaan leeyahay 5 sano hadda soo socota Jigjiga waxay noqon doontaa Washington ta Soomaalida ayay noqon doontaa insha Allah marka ku soo dhawaada afur wanaagsan saaxiibayaal